الله أقولنا حريسته إنجنير يريسو وحقولها tilmaamaha laga rabo qarannimada mustaqbalka wuxuu ahaa Soomaaliyada mustaqbalka aan raadinayno tilmaanteeda oo qofa wuxuu ka madax banaanaa qabyaalad wuxuu jeclaa dalkiisa wuxuu ahaa wadani wuxuu aqbalsanaa shaqo walba oo qaranku u diro inuu qabto wuxuu soo qadimay naftiisa waxaa macno u sameynaysay Soomaalinimada iyo qarannimada wuxuu lahaa dulqaad inteena kale haddii la isku daro aanan lahayn mar walbo la isu yimaado wuxuu ahaa qofka ugu horeeyo tanaasulida looga baahan yahay qof walbo Soomaaliyeed dalkeeda inay u tanaasusho ayuu tusaale u ahaa wuxuu ahaa aamin aan ku shaqeyn musuqmaasuq 11 sano kadib markuu dalka ku soo laabtay iyo markii uu jaamacadda ka baxay maalinna kama aanu niyad jabin inuu dalkiisa u adeego qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay waa mahadsantiin waqtigii uu idinla joogi karay idinla noolaan karay waxaad ogolaateen inaad ku bixisaan inuu qarankiisa u adeego waa ognahay in habeeno iyo maalmo badan oo aad xaq u lahaydeen inuu idinla joogo oo u adeegayo qarankiisa waa sababta ay tahay inaan maamuusno waa sababta ay tahay inaan aaminsanahay inuu la mid yahay halyeeyadii soo xoreeyay dhulkan ka soo shaqeeyay gobonimo doonka waan ogahay inuusan xoolo idinkaga tagin waa ogahay inaanu guriga ka tagin waa ogahay inuu ahaa qof daacad ah oo iimaan leh laakiin wuxuu idinkaga tagay wixii ugu weynaa oo qoys looga tago sharaf karaamo iyo wadaninimo in la sii xoojiyo oo la sii hayana waxaa laga rabaa qaranka iyo madaxdiisa kuwa hadda jooga oo madaxweynaha iyo anigu aan ugu horeynayo gudoomiyaha iyo cid walba oo naga dambaysa maxay ahayd haddii aanu xoolo raadinayn waxa uu raadinayo oo nala ka rabo waxay ahayd kulligeen inaan yeelano tilmaamooyinkii uu lahaa kulligeen inaan nafteena soo qadino allaha u naxariisto injineerka laakiin waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo mar walba oo aan aniga asaga u sinimaado oo culays u jiro wuxuu dhihi jiray ra'iisul wasaare waa inaan ilaahay ku shukrinaa meesha aan ka nimid iyo meesha aan joogno anigoo raacaya wixii inooga tagay taariikh iyo tilmaamo waxaan leeyahay waa inaan ilaahay ku shukrinaa aqoonsanaa meeshii aan ka nimid ogaanaa meesha aan joogno laakiin aan aqbalnaa inaan dagaalka sii wadayno inta ay naftu nagu jirto inta qof naga mida uu nool yahay inta aan gaarayno taariikhdii iyo tilmaamihii uu nala rabay yariisow ugu dambeyntii halkan waxaa soo istaagay ilaahay ha barakeeye caruurtii uu ka tegay yariisow mid ka mid a tusaale kale oo iyana ah taariikh iyo tilmaamo ka sokow shaqadii isaga iyo marwadiisu ay geliyeen allaha barakeeye caruurtooda ayaa halkan ka muuqata inuu sidoo kale nooga tegay haliyey cusub waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo qabrigiisa ha u waasaciyo waxaa kaloon leeyahay inteenni la shaqaysay aan u duceyno aan nacafino ugu dambeyntii shaqaalaha gobolka banaadir qof walba oo gobolka ka shaqeeya oo raba inuu u hiiliyo yariisow waxaa la rabaa inaad ugu hiiliso inaad sii laban laabto shaqadii aad haysay